Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa idin salaamay. The Waterfront Karen Nairobi ku taala meeshaas meel oo aad u qurux badan ayaa maanta vlog u aaday. Marka vloggayga waxaan jeclaystay inaan la wadaago oo maaragtay idinka naftiina kulley maadaama physical ii raaci karin mentally inaa ii raacdin oo maaragtay niyad ahaan ii raacdin aan jeclaystay. Meeshaas maanta tagay meel aad u qurux badan, jawigeeda wanaagsan, jawigeeda kala degan, aad u qurux badan. een dhawaaqa ama maaragtay shanqaraha maqlaysidna waxaa weeyaan kuwa biyaha ama kuwa ciyaar yar oo meel ku ciyaaraya ah oo aad u macda jawigeeda meel qurux badan la qiyaas karin. Meeshaas hadda lama sameynin kulley mar hore ayaa la sameeyey laakiin hore markaan u booqanayay chance maanan helin inaan soo duubo laakiin maanta way ii suurta gashay. Marka waxaan jeclaystay marka waxaan anigana arkay inaan idinkana idinkaga faa'iideeyo oo indhihiina ugu faa'iideeyo. Kulley meesha aad ay u qurux badneed, jawi deganaa meesha lagu qaadanayay, aad bay u qurux badneed. Dad badan ayu nooc Soomaali, ajaanib kale, Kenyaan, dad badanaa joogeen. Marka waa kaa sharaxaadeeda meesha kulley inta ka dambeyso cod ma sii raacin kari, yacni codku ma sii wadi kari. Indhihiina raaciya ilaa iyo maaragtay dhamadkan daawada, subscribe-ta igu dhiirigeliya, like ii saara insha Allah biidhnillaahi kariim. Meelo kale hadday jiraan oo maybe as leedihiin Nairobi meel hebel lagu sheego soo eeg ama noo soo duub insha Allah waa idin soo sheegi garan doonaa, comment igala soo wadaaga. Enjoy insha Allah biidhnillaahi kariim. Assalaamu calaykum.